السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaha garbahayga oo ku soo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa halka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaan soo gudbisay islaaniga walaashin Xafsa soo dhawaada meel kasta ay joogtaan daafaca caalamka iyo gobolada Soomaaliya waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan ani waa fiicana alxamdulillah waxa inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay bara boqol xadiis saasi yeeshee intaan u gudagelin darsigeena maanta ugu horeen hadii ay tahay markuu ugu horeysay hadii laga soo booqtay please subscribe saar hadii aad hornool joogtaan like share labadaas asxaabtaada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada jeceshahay la jeclo walaalkaaga ku soo dhawaada maanta muuqaal cusub iyo darsigeeni 88aad biidhnillah bismillah عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعن المؤمن كقتله متفق عليه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعن المؤمن كقتله متفق عليه نبينا نبتقلين حريس كركي ساهاتي وحدهاي لعن المؤمن mu'minka oo la naclada qofka aad ku dhahdaa lacnada kugu dhacdo ayaa waxay la mid tahay ka qatliga adiga oo dilay yacni qofka oo aad dishay waxa keeno mu'minka aad lacnada way xun tahay qof mu'min oo muslim ah oo aad lacnado ayaa waxay la mid tahay adiga oo dilay insha Allah waxa rajeynayaa in xadiiskan yar qiimaha badan aad wax badan ka fahamteen waa xadiis yar laakiin macno weyn ku jiro insha Allah walaalayaal aan ka fogaano inaan lacnado ku tilmaano amba aan lacnadno in qof muslim ah oo mu'min ah insha Allah way dambi badan tahay waa inaan ka feejignaada waa idinka raali gelinayaa sida aan idinka soo daayay muuqaalka insha Allah in qof walba amuurihiisa Ilaahay u fududeeyo waana ku maasantihiin daawashada muuqaalkayga sidoo kale way ku maasanyihiin asxaabta nagu soo biirtay guud ahaan halkan ay kusoo gowgeynaya muuqaalkayga maad ku maasantahay daawashada muuqaalkayga sidoo kale waa ku maasantahay subscribe saartay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ixris calaa maa yanfacuka istacin billah walaa tacjaz